dalkani Kenya ayaa toogasho ku dilay libaax dadcun ahaa oo ay ku raad joogeen muddo 3 isbuuc ah. libaaxani ayaa ka soo baxsaday marsii horeysay xerada xayawaanada lagu xanaaneeyo ee magaalada Nairobi, waxa uuna waxyeelo gaarsiiyay muddadii uu magaalada ku dhex jiray 2 ruux, isagoo dhaawacay odayda ahaa, sidoo kalena shalay weeraray qof saarnaa gaadiidka mootada loo yaqaan oo uu waxyeeleeyay. askar ka tirsan ciidanka ilaalada xayawaanada ee dalkani Kenya ayaa toogasho ku dilay libaaxani kadib markii loo arkay in weerarada uu geysanaya ay sii bateen. xayn ari ah oo ku xareysneed xero ku taal duleedka degmada Embakasi ee magaalada Nairobi ayuu libaaxani laayay muddadii uu ku jiray ugaarsiga. waaxda ilaalada xayawaanada dalkani Kenya ayaa aad loogu dhaliilay inay ka gaabiyeen ilaalinta xayawaanaadka. bartamaha bishaan aan ku jirno waxaa soo baxsaday tiro gaaraysa 8 libaax kuwa oo ku sugnaa magaalada Nairobi muddo ku siman 6 cisho. waxaa u suura gashay ciidanka ilaalada xayawaanaadka in libaaxyadaasi qayb ka mid ah ay qabtaan marka laga reebo midkan ay toogteen. Ahmed Mahmoud Jamac, Jubaland TV, Nairobi.